sheekh gabadha dhiigga caadadu uu ku dhacay quraanka ma akhrin kartaa kitaabkaas ma qaban kartaa wala mas'alo oo labada mas'alo khilaafiya waaye mid hore oo quraanka ma akhrin kartaa hadaan ku hormarno say u badan yihiin fuqahadu waxa waaye inaysan akhrin karin waxay daliishadeen aayado quraanka kamida laakiin dilaaladooda iyo inay sidaas loo daliishado dood badan ku jirto aanan masalada ku cadayn waxay kale daliishadeen axaadiis ku soo aroortay isla masalada lafteeda ama ay uga qiyaas qaateen ninka janaabada qaba axaadiistaasina kulli wax sugan ma waa daciif aqyisana waa daliishadeen madhab kala jira oo dhahaya haweenaydu markii caadada qabto quraanka way akhrin kartaa mutlaqan waxaana madhabka qaba waa qowl lishaafici qadiim imaam shaafici qowl hore uu lahaan jiray weeye waxaana doortay ibn hazmi al-imam ibn hazmi al-zahiri sheekh islam ibn taymiya iyo culimo badan baa dooranaya waxa kaloo sida qaba al-imam al-bukhari waxaa doortay ibn mundir oo kamida fuqahada muhaddisiinta sidoo kale la shaaficiyada ah inay akhrin karto quraanka waxay ku saleynayaan oo ilayhiin wax daliil cad oo diida lama hayo masaladu masala caanay ahay dumarku qayb dhan oo bulshada kamid ahay quraanka inay akhriyaan cibaado weyn bay ahayd waqtigii nabiga quraanku dagayo rasuulkiina nool yahay baahidaasina taagan tahay wax nas oo ku cad oo diiday inaan la helin maxay ku tusaysaa bimaana wax weeye inay banaan tahay ku tusaysaa masaladu say muhiim u tahay bulshada dhexdeedana ugu baahan yahay u faafsan tahay waa in loo helo nusuus cad oo hadal gali karin oo fara badan loo helo waa haddii loo waayo bimaana wax looga aamusay bay qabtaa shayga haddii laga aamuso bimaana wax weeye waa cafi waa banaan yahay waa واحد نص أو عد أو ديدا ينا الله هيو الإمام البخاري عليه رحمة الله وحود لشدي هنا القرآن كآخرين كرت جواد عدد قبتاي حديث كي وحود لشدي عائشة مركي عدد وكل عدي هو حرم كوسي قال يوسي صعدا وأي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وحكون افعلي كما يفعل الحاج غير الله تطوفي بالبيت وحي حاج سماه يقعد سماه لكن كعبد ونها الضوافر وحود لشنا وحولي حاج وحو سميه وحا كمدا قرانك اخرسكيس gabadha caada qabta la hadlay istidlaalka laftiisa muran baa ku jira waa laga doodaya almuhim warka marka la soo ururiyo waxa weeye gabadha caadada qabtay ahadiista qaarkood uga qiyaas qaateen oo junubku inuusan akhrin karin quraankana iyada lafteedu dacfi baa ku jira mar haday sidaas tahay asalku waxa weeyaan إلى جواد القرآن كأخس لو ديري كرين إلا بدليل عد مويه دليل عد هدي لوايو أصل كوائن بنان تايوا علماء مذهب كقبتانا مسألة حوك بدل وين آخرين كريسا مسألة اللباد أو قرآن كمصحف كتابة شديسة أيضا خلاف كاسو كلا كجرة أيضا خلاف كاسو كلا كجرة حبك الضعيف صلاة ومذاهب أفرتي وحي قوان إلى سنتابا كريل لكن فقهاء محدثين تقارب إلى تابا كريسو أيقنا قارب صداقة مثلا خلاف كتير يضل لفت هذا حديث باكوسو أروري نهاية لا يمس القرآن إلا طاهر قرآن كيوسن تابا للروح الظاهر أحيل مرك حديث كاسي حديث على سكوهستا أحيليه مرسل وي ولوح ضعيف كميدا قالوا حيلي وحوغي سنيا حديث كلا سو ارتي ku xoojinayaan hadana markale waxay ka doodayaan daahirka la leeyahay quraanka yusdaabalil baruuxi daahirka ka ah xadadka yaro weysada u baahnaaba bis xadadka way ruuxi daahirka ka ah ee qabayska u baahnaaba yaani waxa way aan u baahnay ba kee waay dilaaladiisa hadana muran ku sii jira marka saas daraadeed ba xanaabiladu waxay leeyihiin
way taaban kartaa haddii iyada iyo misxafka wax u dhexeeyaan oo masalan ay mara iyo wax iska xijiso ama gaalfiska gacmaha la gashado oo kale ay gashato masala murankeedu badan yahay waaye marka ayada lafteedana wax nas cad ah oo diidaya oo xagga dilaaladiisa iyo sugnaantii thubuutkiisa iyo dilaaladiisuba ay caddahay oo diidaya lama hayo sidii loogu baahnaa iyo say caan u tahay iyo daliil cad la-aantiina waxay xoojinaysaa inaysan iyaduna bannaan tahay wallahu aclam baarak allahu fiik wajazaaka allahu khayran saa'ilka 18aad sheekh faatixada qof aan macnaheeda garanaynin salaada ma laga aqbalayaa ها ولا أقبلها وأصحي صلاته لأنه فاتحة أخرس كذا آيات تير كم إذا تيرن كصلاة لكن فهم كذا تير ما فهم كذا ومعنى السيادة ووحو قلا خشوع ذو قلا ساس رديد بنبي موسى نهين من لم يفهم فاتحة الكتاب نهين يوحو من لم يقرأ بفاتحة الكتاب روحان أخرين فاتحة صلاة بلها مركا أخرسكا أي لازمة فهمك ومعنى زيادة سيداس دراد إدبانا أركيل علماء عيد كمدة أو تشيري فاتحة روحان فهنسنين صلاة دي سماء صحيس واحدة هي ماركل مركا أخرسكا وننا تصحضوا الآن أخرسكا صحضوا وعاد حروفتا أخرين دودا صحضوا انتاسا مهمة صلاتنا سيدا ويكون أصحيسا والله أعلم جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سائلك سقالية بناد شيخ وحولي هي وحل يراهدا الله منحه ايوون حريستا حيث الشيخ معنى هيدو صومالي باتايا كلمة هو صومالي ما هذا صومالي مركا الله منحه واسع نحريستا هذه النحريس ينحدين مكلا دونتا نحدينتو وصفة نقص نحريد سنة وصفة كمال نحدين محل هذا نحدينتو وحوي والروح وحوسا في لينين كيمي كدبنا بغدين كش صوما waxaadan filaynin inuu kugu yimaado waa waxaadan ka warhaynin oo hoday uga warhaynin wada ilaahay waxa dhacaya kama warhayo miya waa mid labaad baqdin miya ilaahay gasha maya sidaas daraadeed naxdintu waxaadan filaynin oo kugu yimaada keena iyo sabab aad jaahil ka ahayd oo si kada kugu dhacday sifa ahaan markay kugu dhacdana waxay tusaysaa naqsi oo baqdintu waa nooc naqsi ay dhimanaan ah إلهي مركا وكان زهية صفات كنقصها لكن صفة الرحمة وصفة كمال إلهينا واسكت المامي قرآن الكريم كان النبي قسنا وكت المامي الله وانا حريستاه وقعيدي سنة الرحمن الرحيم باكم إذا صفات كي سنة صفة الرحمة كم مركا وصح إلهي منحو واسنا حريستاه والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سؤال شلباتناد gabadh baa soo qortay sheekh waxay tidhi sheekh qof isixray ma cafin karaa horta inuu ku sixray waxay u baahan tahay in la sugo ma asagaa kuu qirtay ma markhaati baa la helay waxaan saa u leeyahay waayaan waxaa aada u badan oo fitno ah qolyahan dadka qur-aan saara oo inta badan meelaha u furta oo intooda badan jaahiliin oo aan diinta wax badan ka aqoon laakiin uu ganacsigu meesha ka galay ayaa waxay sameynayaan dadka ay quraan saarayaan ayaa wuxuu leeyahay mid baa hadlaya wuxuu leeyahay hebel baa ku sixray heblaa ku sixirtay islaantii lagula qabay baa ku sixirtay xaaskaagii baa ku sixirtay waxbaa ka dhex hadlaya warkii isaga ahaa buu rumaysanayaa isagaa dhagaysanaya markaasuu hadhow ruuxii wuxuu ku leeyahay waxaa ku sixirtay dangaladaadii dangalada ma taqaanaa waa islaanta lala qabo dangaladaadii baa ku sixirtay ama isla ninkii wuxuu ku leeyahay xaaskaa ku sixirtay
ama gabadhii wuxuu ku leeyahay sodohdaa baa ku sixirtay oo xagee markaad hadlaysay baa yaa dhexdaada laga sheegay kaasi waa mufsid waay waa mufsid ummadda laga qabto u baahan waana nin shaydaan u adeegaya waay xataa hadduu sheekh gadh leh oo koofiyad watayah waa nin shaydaanku ku adeeganaya waay maxaa yeelay waxaan ka dhex hadlaya ruuxa muxuu yahay ya xataa hadduu yidhaahdo muslim baan ahay ma laga rumaysan karaa lagama rumaysan karayo shaydaan baa marka intuu kuu soo dhex galay ruuxii xanuunsanayay ayuu wuxuu kuu isticmaalo kuu adeegsaday inaad dadka isku dirto oo wuxuu isagu toos u gaadhi kari waayey buu adigu kuu isticmaalay waana shaqada ugu muhiimsan oo shayaadiintu qabtaan in dadka muslimiinta la isku diro asaga marka toos buu u qaban waayey adiga oo marka wadaada yuu kuu soo maray warkii buu kuu soo dhex galay sheekadii baad rumaysatay qaar waxay leeyihiin maya muslim wuu ii sheegtayoo wuu ii dhaartay ya oo shaydaanba aadam buu u dhaartay waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin isagoo khayaamayuu u dhaartay marka see ku rumaysanay adigu shaydaan iyo wax beeshan ka hadlaaya muslim baan haya wuu ii dhaartay iyo mufsid waaye kaa in dadka laga qabto u baahaya wayna badanta qoysas badan oo ku burburayna waan ogsoonahay dad badan oo soo wacay oo isku mushkilaysan oo dhex galay oo wadaad uu fidneeyay noocaasana waa jiraan marka warkaa lama rumaysan karayo waa in ruuxan uu isixray marka la leeyahay ama qiraal la hayo oo isagu qirto oo yidhaahdo waan ku sixray ama la helo markhaati iyo caddaymo rasmiya la helo oo markaasi caddaynaya inuu sixirka sameeyey haddii caddaynta la helo markaas saaxirka xukunkiisu say culimmada badankood qabaan waa inuu gaal yahay dembi weyn oo dunuubta ilaah laga galo kuwa ugu waaweyn ka mida kuma filla bal culimmada badankood waxay qabaan biduuni tafsiil sixirkiisa isagoon la kala qaadqaadin inuu diinta ka baxayo imaamu shaafici baa tafsiil geliyey oo dhahaya ha la fiiriyo sixirka wuxuu u isticmaalay wax gaalnimo keenaya hadduu yahayna ha gaaloobo hadduusan gaalnimo keenaynin wuxuu isticmaalayna markaasi iyaan gaalnimo la gaadhsiinin xukunkiisa kaleetana waxa weeye xaddiisu in la dilo madhabkii saxaabadu sidaasuu ahaa cumar xafsata bintu cumar saxaabadu ninkii sixir ku sugnaado waa la dili jiray kow marka dhankaasi waa xukunkiisa waay amaa ruuxii la sixray hadday sugnaato in uu sixray ma cafin karaa mid waad cafin kartaa adiga khaladkuu kaa galay iyo dhibkuu kuu geystay intaad noosha waad cafin kartaa laakiin xaqii ilaahay uu ka galay kaa ilaahay buu la hortegi aduu ma cafin karti ila laba waay waana waa dhib adiga lagu geystay waxna waa khalad addoonku ilaahay uu ka galay dhibka adiga laguu geystay wax weeyaan intaad noosha waad cafin kartaa oo ruuxa dhibka kuu geystay waad cafin kartaa inaad cafidana way fiicanta waa tan nusuus tilmaantay waay laakiin xaqullah oo addoonkani tacadiya xadgudubka uu ku sameeyey ilaahay baa taa iskale adiguna ma saamixi karaysa wallahu aclam أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى شيخ أكابا المريو علمي قابضا وينو فايدي يسؤاله بالشدة كي يميسد أسفافا حسن وقد جوابي